بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha sharafta badan ee ku xiran channelkeena caafimaadka ee caafimaad channel. Maanta waxaynu ka hadli doonaa mooska iyo faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo ee aadan malaysan karin in uu ku duugan yahay cunista ama cabista mooska. Moosku wuxuu ka mid yahay qudaarta faakihada ee dalkeena ka baxda, sidoo kalena dibadda loo dhoofiyo. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu horeeya dunida ee caanka ku ah cunista iyo soo saarka mooska. Intaa kadib, waxaan idinla wadaagi doonaa maanta faa'iidooyinka aan caqligalka ahayn ee laga helo cunista mooska. Mooska waa cunto faa'iido badan oo sidii cunno ahaan loo cuni karo, waxaana laga samaysan karaa sharaab ama cabitaan, kaasoo laga dhigan karo juice. Laakiin faa'iidooyinka mooska ma ahan kuwo aan halkan ku soo koobi karo, balse waxaan idiin soo gudbinayaa faa'iidooyinka mooska ee ugu cajiibka badan. Faa'iidada koowaad, mooska wuxuu hoos u dhigaa cadaadiska dhiigga. Cadaadiska dhiigga ama bareesharka dhiiggaaga haddii uu kacsan yahay, mooska cun si uu hoos kuugu dhigo. Faa'iidada labaad, mooska wuxuu ka hortagaa cudurrada. Wuxuu ka hortag u yahay dhammaan cudurrada. Faa'iidada saddexaad, wuxuu ilaaliyaa caafimaadka maqaarka. Mooska maqaarka ayuu u wanaagsan yahay, wuxuuna ilaaliyaa caafimaadka iyo quruxda maqaarka. Afar, wuxuu dhimaa miisaanka qofka cayilan. Dadka rabaan in ay iscaateeyaan si dabiici ah ha ku dadaalaan cunista mooska. Waxaa kaleeto ka mid ah faa'iidooyinka mooska, wuxuu hagaajiyaa dheefshiidka. Haddii aad ka cabanayso dheefshiid xumo, ku dadaal cunista mooska. Waxaa kaleeto ka mid ah faa'iidooyinka ama waxtarka ama cudurrada uu daaweeyo mooska, wuxuu daaweeyaa xanuunka murqaha. Haddii aad ka cabanayso murqa xanuun ama kala goys xanuun, ku dadaal ama laazim cunista mooska. Waxaa kaleeto ka mid ah faa'iidadiisa, wuxuu nidaamiyaa hawsha mindhicirada. Wuxuu nidaamiyaa ama uu wanaajiyaa shaqada mindhicirada. Waxaa kaloo loo cunaa jimicsiga. Qofka markuu jimicsi sameynaya ama xilliga jimicsiga, waa muhiim in uu cuno mooska. Wuxuu yareeyaa uuna daaweeyaa cudurrada neefta. Dadka qabo cudurrada neefta, daawona wuu u yahay, wuuna ka hortagaa, wuuna daaweeyaa. Sidoo kale, wuxuu ka hortagaa gabowga aan xilligiisa la gaarin. Waxaa jira dad badan oo da'du ku soo degdegto, ha u keento stress ama fikir ama dhib kale. Haddii aad ku dadaasho cunista mooska, wuxuu kaa daaweynayaa ama ka hortagayaa in aysan kugu soo degdegin da'da aan xilligeeda la gaarin. Sidoo kale, wuxuu yareeyaa halista wadna qabadka degdega ah. Wadna qabadka degdega ama ku soo boodka halisteeda ayuu hoos u dhigaa mooska. Wuxuu hoos u dhigaa xanuunka subaxdii ay dareento hooyada uurka leh ama wallaca subaxdii dhiba dumarka uurka leh, aad ayuu ugu wanaagsan yahay. Haddaba intaasoo faa'iido ayaa ugu muhiimsan faa'iidooyinka laga helo mooska. Mooska oo aan ognahay in uu yahay wax qof walba maanta hadduu Allah subxaanahu wa tacaala u fududay uu heli karo. Faa'iidooyinkaas iyo kuwo kaloo badan ayaa laga helaa. Waan filayaa walaalaha qaaliga inaad ka faa'iidi doontaan, kuna dadaali doontaan cabistiisa iyo cunto ahaanba inaad u cuntaan. Walaalihiina kale la wadaaga, u sheer gareeya. Waad mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.